kulanti wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Falastiin iyo sidoo kale Israa'iil u dhaxaysa intaan warbixinada aan u gudagelin fadlan subscribe saar channelkeena dunida news like saar share garay aynu ku horumarno xiisadihii ugu dambeeyay iyo sidoo kale gantaalada la isku adeegsaday dhinaca jiida Gaza iyo sidoo kale kuwa kale oo lagu tuuray dhinaca Tel Aviv caasimada Israa'iil rabshadaha cusub ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa salka ku haya cabashooyin muddo dheer soo taagnaa oo labada dhinac u dhaxeeyay xal waarana aan loo helin ayaa mar kale colaad horseeday waa nabar aan bogsan oo ku yaala bartamaha bariga dhexe waana sababta keentay in ay dhacaan iska horimaadyo fool ah oo markii dambe isku bedelay gantaalo la soo rido iyo duqeyno dhinaca cirka iyo dhimasho ka dhasha in wararka ku saabsan isku dhacyada ay ka maqnaayeen bogaga hore ee warbaahinta kama dhigna in aysan jirin wax isku dhacyo ama xaaladda ay danta keentay aramihii taagnaa ma jiraan wax iska bedelay sida oo kale nacaybka iyo sidoo kale cabashooyinka gaamuray oo sanadaha badan soo taagnaa waxay jiilal badan ay u horseedeen dil iyo sidoo kale dhibaatooyin fara badan in ka badan hal qarni Yuhuudda iyo sidoo kale Carabta waxa ay ku hardamayeen sidii ay u hanan lahaayeen dhulka u dhaxeeya webiga Urdun ilaa iyo badda Mediterranean-ka Israa'iil waxa ay Falastiin ay u geysatay jab isdaba joog ah tan iyo markii ay xornimadii qaadatay 1948 balse wali Israa'iil ma gaarin guul kama dambaysa inkastoo khilaafka qotada dheer ee labada dhinac u dhaxeeya uu sii socdo amida la hubo ayaa waxa ay tahay in dhowrkii sanaba mar ugu yaraan in ay dhacaan qalalaasooyin rabshado wata iska horimaadyada 15 sano ee ugu dambeeyay labada dhinac dhex maray badankooda waxay ka dhacayeen xayndaabka kala qaybiya Gaza iyo sidoo kale Israa'iil balse waqti xaadirkan rabshadaha ka dhacaya magaalada Qudus iyo goobaha barakeysan ee ku yaala ay leeyihiin awood ay ku sii horiyaan rabshadaha taagan haddaba waxaynu eegi doonaa xiisadihii ugu dambeeyay ee Qudus ee sii kordhaya iyo sidoo kale gantaalada ee Xamaas ay ku ridayso dhinaca iyo jiida Gaza wadamada caalamka qaarkood ayaa ku baaqay in la dejiyo xasilooni darada ka dhex aloosan Israa'iil iyo Falastiin oo faraha ka sii baxaya Mareykanka midowga Yurub Britain waxay Israa'iil iyo Falastiin ay ugu baaqeen inay xaaladda si dhaqso ah ay u qaboojiyaan xiisada ayaa ka sii dartay habeennimadii Isniinta kadib markii Falastiiniyiinta ay gantaale ay ku soo tuureen magaalada qeybaha ay ka degan yihiin Israa'iiliyiinta oo jawaab uga dhigayo gantaalada dhanka Falastiin laga soo riday waxay qaaday duqeymo dhinaca cirka ah iyadoo duqeynta ku beegsatay saldhigyo ay kooxaha Falastiiniyiintu loo maleynayo in ay gantaalada ay ka soo ridaan saraakiisha caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegeen in dhaawaca amaba sidoo kale dhimashada uu gaaray ilaa 43 qof ugu yaraan caruur iyo haween ayaa ku jira dadka iyagu uu waxyeelada uu ka soo gaaray magaalada muqaddaska ah ee u ah Kirishtanka Yuhuudda iyo sidoo kale Muslimka xaalkeeda ma ahan mid diineed oo kaliya goobaha barakeysan ee diimaha Yuhuudda iyo Muslimka waxay magaaladaasi ay ka yihiin astaamo muuqda waxaana u dhaxeeya masaafo aad u yar oo qofkii dhex tuura ama dhexmara uu gaari karo kaniisada Isboric oo ay si aad ah ay u xurmeeyaan Falastiiniyiinta Masiixiyiinta ahna waxa ay ku taalaa meel aan ka fogeyn goobta ay ciidamada Israa'iil ay wax ku baaraan rabshadahan ugu dambeeyay waxyaabaha kiciyay waxa kamid ah hanjabaado loo soo jeeday Falastiiniyiinta degan xaafadda Sheekh Jarrah in guryahoodii laga saarayo xaafadaasi oo ah mid ay Falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ka baxsan darbiyada magaalada qadiimiga ah oo ay sheeganayaan koox Yuhuud ah oo tagay maxkamadaha Israa'iil ayaa qorsheynaysa magaalada Qudus in ay noqoto magaalo Yuhuud ugu badan lagu beero Israa'iilna sanado isxigxigay waxa ay dhulka ay xoog ay ku qabsatay ee Falastiin ay ka dhistay deegaano dadka Yuhuudda la dejiyay taasoo la sheegay in ay ka hor imaanayso shuruucda caalamka u yaala sanadihii ugu dambeeyay dowladda Israa'iil iyo Yuhuudda deegaameynta loo sameynayo oo iskaashanaya waxa ay ka shaqeeyeen si dad badan oo Yuhuuda loo soo dejin lahaa deegaanada Falastiiniyiinta ee ku dhow darbiga magaalada qadiimiga inta waxa si dheer dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxa si weyn isu farasaaray booliska Israa'iil iyo sidoo kale Falastiiniyiinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana ka dhashay in masaajidka Al-Aqsa gudihiisa lagu tuuro bamka qarxa ee naxdinta badan leh masaajidkaas oo ay muslimiinta aad u xurmeeyaan marka laga reebo
maka iyo sidoo kale madiina. ururka xamaas waxa uu qaaday tallaabooyin kadib markii dalabkoodii ahaa ciidamada Israa'iil inay ka baxaan agaaraha masjidka al-aqsa iyo xaafadda sheekh jarra kadibna waxay magaalada qudus ku soo rideen gantaalo tiro badan. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu bartiisa Twitter-ka uu ku qoray ururada argagixisada ee Gaza in ay khadka cas soo dhaafeen Israa'iilna awoodda ugu sareysa ay uga jawaabi doonto. wariyaha BBC-da halkaasi uga soo warama ayaa isniintii weydiiyey xili ay rabshaduhu ay bilowdeen waa goorta xiliga ugu dambeysay oo laga rajo qabay in ay labada dhinac gaaraan xal nabad u horseeda. waxaan magaalada Qudus anigu ku noolaa 1995 ilaa 2000 marar badanna waa ay ku soo noqnoqotay. su-aasha aan wariyaha weydiinay jawaabta ku haboon in loo helo way adag tahay. heshiiska ugu rajada wanaagsan ee la xusi karo waxa uu yahay geedi socodka nabadda ee Oslo ka dhacay 1990kii waxaana heshiiskaasi xusuusan karaa oo kaliya dadka ay da'doodu ay ka yar tahay 40 sano ama ka weyn tahay. hogaamiyaasha labada dhinac waxa ay u howlgamayaan dagaaladooda siyaasadeed ee gudaha iyagoo xooga saaraya sidii ay u ilaalin lahaayeen jagooyinkoodii marka arinta ugu weyn ee hogaamiye kasta oo Falastiini ama Israa'iil ay tahay in ay nabad timaado. caqabadaas ayaana ah midda aan sanado badan wax laga qaban. fikradaha cusub ee jidadiilada leh ee haatan soo baxayana waxaa ka mid ah warbixino ay laba hay-adood oo caan ah ay soo saareen oo ay ku sheegeen in mudnaanta koowaad la siiyo xuquuqda siman iyo nabadgelyada siman sidii ay Falastiin iyo Israa'iil looga heli lahaa. fikirkaasi oo ah mid wanaagsan oo soo dhaweyn mudan. gantaalada labada dhinac ay ridayeen ayaa laga dareemayay dhinaca Tel Aviv oo dhowr dhinac uu ku dhacay. waxaa jira meelo badan oo ay Israa'iil hadda bandow ay ku soo rogtay ama xayiraad ay saartay magaalooyinka oo Israa'iil ay u aragtay in ay duqeynta ay la dhacayso kooxda Xamaas ee ka dagaalanta jiida Gaza. weli waxaa socda dagaalka u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo Dagaalyahanada Falastiin kadib markii xalay labada dhinac ay isdhaafsadeen hubkii ugu cuslaa in muddo. wasaaradda arrimaha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 43 qof ay ka mid yihiin 13 caruur ah halka 300 qof ay ku dhaawacmeen tan iyo Isniintii oo ay dagaalada ka qarxeen halkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in gantaalada lidka taangiyada lagaga soo riday dhinaca Falastiin halka warar kale ay sheegayaan in hal qof uu ku dhaawacmay halka 2 qof kalena ay dhaawacoodu dhinaca Israa'iil yahay. in ka badan 1,000 gantaal ayaa ku dhacay bartamaha iyo koonfurta Israa'iil kuwaasi oo ay soo tuureen dagaalyahanada Falastiiniyiinta. Xamaas waxa ay wacd ay ku martay in ay sii wadi doonto gantaalada ay la bartilmaameedsanayso magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil. Israa'iil ayaa xaalad degdeg ah gelisay magaalada bartamaha dhaca ee Lod kadib markii dibadbaxyo rabshado wata ay halkaasi ay ka dhigeen dad ka soo jeeda carabta Israa'iil xili uu sii xoogeysanayo dagaalka u dhaxeeya ciidamada iyo dagaalyahanada Falastiiniyiinta. xili ay rabshadaha ay ka socdeen magaalada Lod waxaa dab qabsaday baabuur waxaana halkaasi ku dhintay aabe iyo sidoo kale gabadhiisa kadib markii baabuurkoodii uu ku habsaday madfac. dagaalyahanada Falastiiniyiinta ayaa gantaalo ku garaacay gudaha Israa'iil halka Israa'iil ay duqeeyeen Gaza. ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhintay dagaalkan ka socda halkaasi. militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in ay beegsanayaan dagaalyahano Falastiiniyiin ah oo ku sugan marinka Gaza kuwaasi oo iyagu gantaalo ka soo tuuraya kuna soo weeraraya Israa'iil. in ka badan 1,000 gantaal ayaa ku dhacay bartamaha iyo koonfurta Israa'iil kuwaasi oo ay soo tuureen dagaalyahanada Falastiiniyiinta. meelo ka mid ah magaalada Gaza waxaa la arkayay gantaalo ay ridayaan diyaaradaha dagaalka Israa'iil kuwaasi oo bartilmaameedsanayay saldhigyo sidoo kale dhismooyin ay dadaleyda ay ku nool yihiin. barakac xoogan ayaa ka socda magaalada Gaza oo ay jiida ama saldhig u ah ururka Xamaas halkaasi oo saacadihii ugu dambeeyay gantaal ay ka soo ridayeen ururkaasi Xamaas. waxaa jira dadaalo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisada hadda labada dhinac ka soo cusboonaatay. wadamada adduunka meelo badan ayaa dibadbaxyo ka socda oo lagu taageerayo
ururka xamaas iyo sidoo kale shacabka Falastiin. meelaha dibadbaxyadu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul iyo sidoo kale magaalada Ribaad ee wadankaasi Morocco caasimad u ah, halkaasi oo la tilmaamayo in shacabka ay ku muujinayeen carada ay ka qabaan sida Israa'iil ay ugu xadgudbayso shacabka reer Falastiin. sidoo kale dadka ayaa waxa ay tilmaameen in ay jaamacadda carabta ay ka gaabisay arrimaha quseeya dagaalka Israa'iil ay hadda ay ku wado dhinaca jiida Gaza. wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ugu baaqeen maxkamadda ICC-da in ay qadiyad dagaal ay u aqoonsato gantaalada iyo sidoo kale awoodaha Israa'iil ay u adeegsanayso dadka ku sugan magaaladaasi Gaza. wararkii ugu dambeeyay waxa ay xaqiijinayaan in xaaladda hadda ay degan tahay, inkastoo subaxnimadii maanta oo Arbaca ay jirtay dhowr gantaal oo ay jiida Gaza ka tuureen kooxda Kataib al-Qassam oo garabka midig ee kooxda Xamaas ah, kuwaasi oo ku dhacay dhinaca Israa'iil. magaalada Casqalaan waa meelaha hadda ay ka guureen dad badan oo Israa'iiliyaan ah. sidoo kale waxaa jirta in diyuuradihii ku soo wajahnaa Israa'iil loo weeciyay dhinaca wadankaasi Gariika, iyagoo kuwii kale garoonka ku sugnaana meelo kayda la geliyay.